بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. إلهي أنكم أنفعوا آيات القرآن الكريم سورة داس الدردار وأنكم في الانتهاء إلهي سبحانه وتعالى أنا ضمانت كعب صنو أنت كذب dhammaan salaamaya akhyaarta iyo odayaasha meesha isugu yimi waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaan caddaynayaa ulajeedada shirka maanta halkaan u fadhino uu ku saabsan yahay waa baab aanu u dirayno shirkii ku dhammaaday magaalada muqdisho annagoo ka wakiila shacabka dadka reer Puntland kala mid ah qaybihiisa iyo deegaamadiisa kala duwan dadka fadhiya wakiil ka baaqayagu waxa weeye communique ka soo baxay magaalada muqdisho ee madaxda Soomaaliyeed ay soo saareen ayaan waxaanu cadeynaynaa mar hore iyo mar dambe sidii dadka reer Puntland ay u cadeeyeen aragtida ay dadka reer Puntland ka qabeen aragtidaas oo ka soo bilaabatay ujeedada aan diidanahay ay tahay 4.5 in wax lagu qaybsado dadka reer Puntland iyo dadka golaha fadhiya midna raali kama aha mana aqoonsana in wax lagu qaybsadana raali kama aha sababaha ay raaliga ugu ahayn waxa weeye 2012 kii ayaa waxa halkan lagu qabtay Garowe shir Garowe 1 iyo Garowe 2 tanaasulkii ugu dambeeyay oo ummadda Soomaaliyeed ay u baahnayd ama ay qaadan lahayd ayaa la qaatay inaan 4.5 markaa wax ka dambeeya aan waxba lagu dooran wuxuu isu bedelay qodob dastuuri oo galay dastuurka qaranka federaalka ummadda Soomaaliyeed galay qodobkaas saas dastuuri ku noqday mar labaad anaga gaar ahaan dadka reer Puntland afti baa laga qaaday 600 oo qof oo matalaya gobolada kala duwan iyo deegaamada kala duwan waxay codkooda si dheer oo qeexan ugu sheegeen inaysan 4.5 waxba ku rabin deegaan iyo degmooyin iyo gobollo in wax lagu qaybsado ay tahay waxaan mar kale la sharciyay baarlamaanka Puntland uu sharciyay qodobka oo xeer u bedel oo cod u qaaday inuu xeer dastuuri oo dadka Puntland yahay annagoo taa ka duulay waxaanu cadaynaynaa inaan 4.5 wax lagu qaybsan karo oo dadka reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed midna uu sano u tabin waa dib u dhac 4 sano ka hor wixii aan ka soo gudbinay dib ugu noqono sharciyada ma waafaqsana dadka Soomaaliyeedna waxa la rabaa inay sharci isugu yimaadaan ummadda Soomaaliyeed uma qaybsana dad cirka degan iyo dad dhulka degan dhammaantii dhul buu ku dhashay dhul buu degan yahay deegaan buu ku soo jeedaa soo rabaha ku kala badnaa soo rabaha ahaado qof walbaana xuquuq asaasi u leeyahay oo xor yahay haddaba waxaanu ummadda Soomaaliyeed u cadaynaynaa 16 sano hadii 4.5 xal ummadda Soomaaliyeed loo maliyay laga gudbi waa wuxuu noqday caqabad aan laga gudbi karin wuxuu noqday wax madaxa dadka kaga duuban wax aan cidna matalin sidaa darteed waxaan cadaynaynaa inuu qodobkaasi qodob xaaraan ah oo aan mujtamaca meel ka soo gelin u qalmin uu yahay cid uu haba yaraatay xaq gooniya siinayaan aysan jirin haddaan qodobka ka gudbo waxaan maqlaa cadaadis beesha caalamka jira oo gaar ahaan dadka ama gobolada ama mas'uuliyiinta qayb la saarayo beesha caalamku ummadda Soomaaliyeed inay dhex u tahay waa muhiim gaar ahaan dadka Puntland wax gooniyo oo hadda ay ku hayaan amnina uma qaabilsan dhaqaalaha kuma taageera wax gooniyo oo hadda ay ku cadaadin karaan oo hadda ay xuquuqdooda kaga tanaasuli karaan ma jiro waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed waxa loo noqdo annagu deegaan diyaar uma nihin ummadda Soomaaliyeed asaas ugu baaqaynaa qof xaqiisa ku waayaya deegaan ma jiro qof walba xaq uu sharciga u leeyahay buu helaya kii alla u badiyay oo badanaya kii ma taqaana uu yaraana wuu yaraanaya insha Allah taala waxaan u gudbinayaa akhyaarta kale wabillahi tawfiiq insha Allah taala.